بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني وكلنك تي في كسو دوادا برنامج كان حقتا وراركا waxaanu ku soo qaadan doonaa General Sakiya Hussein oo maqaal gaar ah ku qortay warbixin ayada ku saabsan waxaayna ku bilowday sida tan Sweden cunsuriyad Soomaaliyana qatar dhimasho gabadhay yaraanteedii Sweden lagu cunsuriyay hadda waa gabadha kaliya ugu sareysa booliska Soomaaliya waxaayna ku nooshahay xaalad qatar dhimasho sidaas waxaa lagu daabacay wargeyska Skanka ee ka soo baxa koonfurta Sweden. General Sakiya Hussein xilligan waa taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya waxay ku soo barbaartay magaalada yar ee Sloth ee ku taal koonfurta Sweden waxayna ahayd gabadha kaliya ee madow ee ku jirtay fasalka kooban 35 caruur ah. xilligaas waxa ay ahayd gabar farxad badan oo u keentay caruurta fikrado muhiim ah laakiinse waxa ay dhowr jeer la kulantay midabta koorkii ugu horeeyay iyadoo lagu aflagaadeeyay midabkeeda laakiinse xilliga waxay hooyadeed ka heshay talooyin dhiirigelin ah oo muhiim u ahaa nolosheeda waxayna ku oran jirtay sidan si kasta oo lagu niyad jabiyo ama lagu xaqiro ogow aqoontu waa awoodda kaliya ee aad kaga gudbayso. taliye Sakiya oo nolosheedii yaraanta uga warantay wargeyska SD waxay tiri sidan markaad u milicsado arurnimadeedii aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku soo koray Sloth waa tuulo yar mana ilaawi karo nolosheedii waxaan dib u xasuusanayaa saaxiibadeydii iyo waxyaabihii aan sameyn jiray arurnimadeedii waxaanse markasta xasuusnaa in Soomaali aan ahay. Adriana Steve oo macallimad u ah taliye Sakiya waxay tiri intaan macalinka u ahaa Sakiya waxa ay ahayd gabar fariid ah oo abaabul badan mar ayaan qalad ka galay waxay ku xalisay in ay qorto maqaal cabasho ah waan ku faraxsanahay Sakiya oo aan macallin u ahaa inay maanta tahay gabadha ugu sareysa booliska Soomaaliya. Soomaaliya waa qatar aniguna kuma dhiiran karo meel dhimashadu joogto ka tahay iyadu waxa ay go'aansatay in ay isbedel samayso ka hor inta aysan Soomaaliya ku laaban. Sakiya waxa ay jaamacad kaga baxday magaalada London kadibna waxa ay go'aansatay inay dalkeedu hooyo ku laabato si ay qayb uga noqoto dib u dhiska. taliye Sakiya waxa ay sheegtay in dil loogu hanjabay laakiinse ma sharaxin inta dilka ugu hanjabtay inay gabar tahay darteed waxayna tiri sidan waa joogto in lagu cabsi geliyo lagu liido sababo la xiriiro inaad tahay gabar waana tan keentay in si gaar ah la ii bartilmaameedsado iyadoo la leeyahay sidee gabar ciidan u hogaamin kartaa laakiin marna ma niyad jabin. waxaan doonayaa inaan taariikhda uga tago haweenka kale ee ka mid ah ciidamada Soomaaliya oo ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga ah. fadlan haddaan ugu cusub tahay janaalkeena kulanka TV subscribe noo saar sidoo kalena page-keena Facebook follow na soo dheh mahadsanid mar kale.